بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan ummadda Islaamka meel kasta oo caalamka ay ka joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. hambalyadan oo ku aadan bilashada bisha Ramadaan, hadii Ilaahay yiraahdo maalinta berito oo Khamiis ah ay tahay 17 bisha May 2018. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah taala bishan inay noo noqoto bishii wadankeena ku hagaagi lahaa, ducadeen la aqbali lahaa. waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah aan baaq ugu diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. sida la socotaan bishan waa bisha kaliya ummadda Ilaahay bil kasta waa ummadda Ilaahay soo naxariisto wax banaan weeyaan. bishan Ilaahay si gaar ah ayuu uga hadlay dadka masaakiinta ah in sadaqaadka la wajibaarayo, dadka wixii maartay tabartooda liidato in maartay wixii loo qaban karo la qabto, sadaqaadka la baxsado. haddii aad afurkaaga adigu aad haysato haaf aad ka reebi karto qof kale ayuu noqon karaa afur. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isgaargaaraan gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Kenya. waad la socotaa dad jooga xiriyaha qaxootiga ku nool oo aan heli karin waxay ku afuraan. dalka gudihiisa aad ka warqabtaan waxaa ka dhacay fatahaadyo, dad ayaa waxay meel ay ku hoydaan aan haysanin, waxay xirtaan aan lahayn, iska daa waxay ku afuraan. marka inaad xusuusnataan in meesha aan ka nimid dadka anagu aan ka nimid inay dhibaatooyin ku sugan yihiin oo aanan kaliya noqonin sida markasta dhacda. dadka waxaa la yiraahdaa bisha Ramadaanka ah waa xilliga ay ugu cunto gadis badan yihiin, ay ugu maartay badan yihiin maxaa la yiraahdaa tasarrufka xagga raashinka. Ilaahay ma barin runtii sababta bishan Ilaahay u keenay xigmadda ka dambaysa waxay tahay waxa qayb ka ah in qofka ruuxa bini aadanka uu dareemo gaajada xanuunka ay leedahay. laakiin dadka waxaa muddo qaarkood inay cagsi arinta ka dhigeen raashin badan la iibsanayo bakhaarada marka tagto meelaha raashinka lagu iibiyo inay dadku mashquul ku yihiin iibsashada raashinka. qofkan waxa uu cunayo wixii hore uu cuni jiray wax ka badan ma cunayo. laakiin walaalayaal waa inaan qorshaha ku tarsanaa inaan ku noolnahay qurbo, inay jiraan dad qaxootiyo oo Soomaaliyeed oo xilligan aan isla hadlayno wax ay ku afuraan iska wadaay xitaa galaas biyo ay cabaan aan heli karin. marka qof walba muslim waxaan leeyahay walaalayaal inaan isgargaarno, ruuxa daraska inaad ka wareysid, laga yaabo adigu inaad raashinka ka soo haray aad dustbin ku ridayso, dadna waxay cunaan ama ay ku afuraan ba aanan haysanin. marka xusuusta Ilaahay maartay hala badiyo, dadka hala xusuusto, sadaqaadka hala badiyo, hala isgargaaro, wadankan ha loo duceeyo inuu Ilaahay maartay habeen waxa jira bisha Ramadaan gudaheeda Ilaahay Quraanku ku sheegay dadka ducaadkooda la aqbalayo in maartay Ilaahay wadanka loo baryo. meel fiican aan maanta maraynaa sanadeeda Ilaahay intaan in ka wanaagsan in maartay wadanka Ilaahay inuu gaarsiiyo, dawladda loo duceeyo, dadka dhibaatada ku dhacday fatahaadaha walaalay Hiiraan iyo meelahan kale laga soo sheegay Jowhar iyo goboladan kale Soomaaliya inteeda kale dhibaatooyinka fatahaadu ay geysteen iyo in iyagu maartay loo duceeyo in Ilaahay maartay bogooda burcada u mariyo. marka intaas ayaan ku soo koobaynaa. waxaan idin leenahay hambalyo, kullu caam wa antum bikhair.